Bismillahirrahmanirrahim. Casharkani waa keenay toddobaad qaybtiisa labaad kaasoo ku dhigan doona intii login-ka inoo harsanayd. Wixii su'aalaad waxaa noogu soo diri doontaan samtech22@gmail.com insha Allah biidhnillaahi al-kariim. Iminka waxaynu bilaaban doonaa project-geeni. Password-ku wuu muuqday. Waxaynu ka dhigi doonaa mid qarsoon. Okay. Aynu ku darano required inaan la dhaafi karin meel bannaan aan login la dhihi karin login. Okay, ma garanayo required falaadhe noo soo fur components model data annotation baan click siinayna automatically inoogu sameeyay. Okay, kan hoose password-kana keen si aynu ugu yeelno featureski password-ka data type baan dhahaynaa. Okay, qoysinoo soo fur data type dot password. Okay, inoo bildi kare iminka aynu eegno refresh note iminka password-kanu gelino already wuu isqarinaya password-kii. required uu yahay laakiin username kaliya required ka dhignay kana required ku darsan insha Allah password-kana isna waxay noogu raacsan required hakat. Okay, inoo bildi kare isna sidoo kale noogu dari doona insha Allah. listing hadaynu tagno aynu project-ka isla inagoo list ka dhex joogna run garayno control F5 aynu dhigi automatically list ka soo baxaya in login-ka nooga bilaabo baynu doonaynaa si aynu login-ka ugu soo darsano inuu ka bilaabo insha Allah. waxaynu dhex tegi doonaa web.config ka dhex tegi doontaa code-ka baynu qoran doonaa daba authentication mode-kiisa waxaynu ka dhigi doonaa forms. Okay, inoo soo xid enter. Okay, halkan ba waxaynu ku qoran doonaa hadaba wixii halkan qaban lahaa meesha wax ka soo akhrisan lahaa waxaynu dhig forms. Okay, login URL. Okay, meesha wax ka soo akhrisanayo waxay noqon doontaa class-kii login-ka ahaa. Authentication waa control-ka ku dhex jiro. Okay, ama folder ku dhex jiro kana waxa weeye aynu qori doonaa iminka hash meesha daba ka soo akhrisan doono action-ka ama view-ga magaciisa kana weeye. Okay, inoo soo xid. Okay, inta markaynu samayno waxaynu tagi doonaa class-keeni inoogu dhex jiray controller folder-ka. Okay, home controller. Okay, waxaynu sheegi doonaa authorize qof user soo galay uun baa tagi karaya ama click siin karaya. Okay, authorize baynu dhigi. Okay, iminka bildi kare inoo bildi garoobay. Okay, iminka automatically wuxuu ka soo kacay kii login-ka ahaa. automatically login ka soo kacay haddaynu kaydinta ku dhufano sidoo kale ma gudbayo. home haddaynu ku dhufano ma gudbayo, mailna uma gudbayo. haddaynu click siino markan username-ka admin password-ka aan gelino markaas inoo gudbayaa in wax walba qaban karnaa insha Allah. Okay, waxaynu ka saari doonaa intaas waa intaa. Okay, waxaynu ku darsan doonaa isna log out kaasoo log in-ka marka lagu jiro si looga bixi lahaa sign out loo dhihi lahaa. Okay, isagu ma baahna wax la yiraahdo view umana baahna wax la yiraahdo method database-ka ah. marka waxaynu samaysan doonaa session-ka baynu ka qaadi karnaa forms authentication
dot sign out. Okay, waxaan dhihi doonaa session. Okay, calaamadihii double quotes user equal null. userka ku jira null ka dhig sessionka kan yani. Okay, log out ka marka la taabto meesha u gudbi lahaabna iminka samaysan doonaa retain redirected to action. Okay, xaguu inoo gudbin doonaa automatically loginka inoogu celiyo systemka wax inaga saaro. intaasna waa meesheeda. Okay, inoo buildi kare. Okay, waynu buildi karaysanay. Okay, waxaan doonaa meesha laakiin marka la taabto isaga sameyn lahaa log out baynu samaysanay. marka la taabto already log out inoo samee sessionka ka qaad wax walba inoo samee. Okay, waa kawana samee log out marka taabano automatically key login kana mana geli karno. Okay, minka waxaan doonaa in layout kan saraba ee madow aynu ka qaadno projectkeena. layout bayna dhih null keenu dhex joogno layout ka wuxuu ahaa login keeni class keeni laakiin wuxuu sameeyay dhammaan wixii class CSS habo ka qaaday inaga automatically u yeerana keeno hayn lahaa. Okay, wax dhaadheer buu ka dhigay fool xun aynu xogaa wax qurxina ku darno. Okay, div dot aniga waxay sahlaya web essential. Okay, lg for offset waxaad ka buudaa okay intaynu soo kad kare form group inoo dhex geli. Okay, waxaad intuu ka buudeed aynu sheegno oo ah 4 buu ka buudiyaa. Okay, uu boodi 4 iminkana aan ku darsan intii uu isagu fadhiisan lahaa oo isna aan ka dhigno. Okay, 4 6 oo kale aan ka dhigano 6. Okay, intaas oo fadhiisay kuwa kalena sidoo kale aan ka dhigano. kana waxaan sheegnay intuu ka buudayo intuu fadhiisanayo 6. oo tagad focus labaad. Okay, button kan isna sheegno div class-ka waxaad ka dhigtaa intuu ka buudayo inuu sheegno horta kala lg offset waxaad ka buudaa 4 ka buud 4. Okay, intuu fadhiisanayna waynu sheegnaa column isna intii kuwii hore baynu ka dhignaa oo 6 ahayd. Okay, intaa dambe inoo soo kad kare buttonka dabadiisa dhigan doonaa insha Allah. Okay, waka intaa hoose back to list naga saaro waxaynu login. Okay, kan kale isna login muuqanaya baysan dulkeysan doona waxii dharka sare. isna already waxaan sameyn doonaa intii aynu kuwii hore ku samaysanayo kale oo inuu ka boodo 4 6na uu fadhiisay isagu. inoo soo kad kare loginka inoo daba dhig levelkeena inoo save kare. Okay, refresh iminka laakiin uu yara dheer yahay aynu ka yaryarayno. Okay, 3 intuu ka boodiyo 3 ka dhig intuu isagu fadhiisanayna already waxaynu ka dhigan doonaa 5 4 baynu gudaa. Okay, ka kaladan 4 iyo 3
kan kalena 4 iyo 3 3 iyo 4 okay ka badhanka na isna aynu tagno isna 3 iyo 4 okay na safire okay badhanka magaca ku bedela login okay imika way refresh karana intii uu ka yar yahay uu ka qurux badan yahay okay waxaynu samaysan doonaa iminka wixii la dhihi jiray in userka ka muuqda uu navigation sare inooga muuqdo waxaanu qornay li class drop down la yiraahdo okay jirib meeshii wax lagu soo akhrinayay waxaan ku soo akhrinay marka lagu dhufto class kana waxaad ka dhigtaa drop down toggle okay li ma dhigashana ayadana waxaynu u dhiibaynaa waxaynu hoos gelinaynaa keenan iminka kor inoo saaran ee log out ka ah si marka la soo furo uu userkan log out gara yani oo kale log out okay drop down bani kor soo baxayna okay waxaynu u dhiiban doonaa waxa la yiraahdo data toggle aynu ka dhigan doonaa drop down yani waxaan wax furmaya noqonaya roolkiisana button baan ka dhigaynaa okay Arial has pop up waxaynu ka dhigi doonaa equal true kana waxaan samaysan doonaa area expander key oo isna false ka dhigan doono false okay ka la ayda horta iyadu may ka dhexlewnay iyadu aan dhex ka shaqeeyo ashi okay drop down okay inta uu ashata bayna soo geeyay la ayda dhex kale okay drop down ta menu dina raacay okay iminka refresh kare okay already drop down meesha drop down ku qorma inuu ku sabaxa userka inaga inoogu jira iminka soo sabaxayno qorna @user dot identity dot name intaas aynu qoran doonaa insha Allah save dayna iminka admin baynu ku galaynaa login baynu magaceena userka oo admin ah baa ka soo bixi doona insha Allah halka kaasoo ka soo akhrisanaya xagga database-ka marba kii soo gala okay aan ka saarno kala lid okay ninka laadina sin loo iska saarnay la atin doona log out ka soo naga soo bixi doona iska insha Allah waa inoo yacashka kan xiga wixii su'aalaha ama comment waxaan ugu soo diri doontaan samtaj22@gmail.com insha Allah باذن الله الكريم